دكتور شيخ أحمد waxaan jeclahay part 1 halkan inaan ku joojino part 2 baan isku imaan doonaa laakiin dad badan oo dhageysanaya jira oo yaani gabdhaha iyo wiilasha hadda shukaansigooda aad u badan yahay waxyaalaha badan aan arko waxa kamida wiilka oo yiraahdo aniga isma bedeli karo iyo gabadha oo iyada tiraahdo aniga isma bedeli kari wiilka saas ay yaqaanaan hooyaday saas ay taqaanaa yaani saas la treat gareeya marka maxaa kula talin lahayd يعني dadka noocaas oo kala horta waxa qofka inay tiraahdo isbedeli kartiya ku sheegay su'aash meeshta la taas waa ay kana duud markaa dhaysiya ma hayo waxa jira Soomaalidu ay leedahay oo waani abuuris baa horeeyay maada hadii si loo xalaga yaabay inay Soomaali si kale u wadaalay laakiin hadii ka wadaan qofkan saanu abuuran yahay oo ma la bedeli karo arintaas qalad waa diinta hadduu qofka uusan bedelmaynin مثلا qofkan wuxuu ku yiri ana kana caabuday ma bis bedelaybo ilaahay wuxuu dadku yaabay inna wajadna aabana ala dhalika wa صح weey marka qof weyn isbedeli karo oo la hada rasuul sallallahu alayhi wasallam al muslim hayyin layyin wa qofku calaamada muslimku waa qof hayyin layyin oo jiidan kar la soo jiidi karo marka insha Allah pointiyadaas oo isbedel hatta dadka psychology waxay ka dhigeen qofka inuu soo celceliyo waxyaabo la isku bedelo kale insha Allah taala we will go to the next one insha Allah